الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله waxaan isku dayay inaan duubo cashar ku saabsan sida Facebooka platformka Facebooka alaabtaada aad marketing sameynaysid aad marketing ugu sameyn lahayd aad usoo dhigi lahayd ugu fudud ayaan ku tusi hadduu ilaahay noo aqbalo bishu maanta waa 24 bishii 14keedii hameen sabti soo gala waaye markaas waan isku day insha Allah biidhnillaahi kariim markaa platformyadu WhatsAppka waxaa lagu xayisiiyaa oo alaabtaada aad ku xayisiin kartaa adduunyadu maanta waxay u guurtay oo qarbiga iyo Yurub iyo Mareykan oo dhanba xoolahoogii waxaa lagu iibinayaa netka dhexdeeda platformyada dhexdeeda lagu iibinayaa ha noqoto Instagramkii WhatsAppkii TikTokgii ha noqoto maxay ahayd Facebooka dhexdiisa marka meesha ugu weyn ee maanta wax lagu xayisiin karaa waa Facebooka alaabtaadii markii manualkii wax lagu xayisiin jiray adeecadaha raadiyooyada ayaa laga soo dejin jiray alaabta hadda platformyadii intaasoo milyan oo qof ku jirta halkaas aad ku xayisiin karaysaa marka lacag la bixiya xayisiiska advertisementiga Facebook lacag ka qaadan kadib lacagtaas uu ku xayisiinaya meel kastoo u baahan tahay ayuu gaarsiinaya alaabtaas hadayna gadid rabtid meesha doonto aad u dooran waqtiga doonto taariikhda ayaa dooran magaalada rabtid ayuu ku focus sameynaya oo diirada ku saaraya oo ku xayisiisan karaysa markaas insha Allah waxaan isku day doonaa inaan ku tuso platformka Facebook sida uu marketing aad ugu sameyn kartid wuxuu soo kordhiyay nidaam ay u bixiyeen marketplace meeshii suuqa marketplace wax lagu iibinayay ayuu soo kordhiyay Facebook markaad Facebookaaga update aad sameynay waxaad kasoo dib baad ula soo degi Play Store dib ugu qoray Facebook aad la soo degi Facebook waxaa jira Facebook hoosta ku qoran tahay iyo Facebook Lite-ku ma laha wax maxay ahayd marketplace laakiin Facebook caadiga wuxuu soo kordhiyay aqalkaas lagu soo kordhiyay mawjada aqalkaas ayaa lagu soo kordhiyay aqalka ma lahan jirin awal waa kan kale haddaan ku tuso Lite-ka Lite-kaas mala muley waxaa malay laakiin kan kaleeta waa leeyahay aqalkaas uu soo kordhiyay marka aqalka muxuu ka dhigan yahay aqalkaas waa aqalka soo kordhay ku sheegay wax loo bixiyay marketplace Facebook ku soo daray marka aqalkaas taabanaysa waxa suuqii oo dhan adduunyada oo dhan wax soo dhigaysa ninkaas wuxuu hayo soo dhigaya uu iibinayay marka adiga waxa kula haboon inaad ka faa'iideysatid gurigaaga iska jooga alaabtaada ku xayisiisatid dad badan way sameeyaan sidaas aduna dadka ka mid noqo ka faa'iideyso gurigaaga joogana waa laga helaa waad ka helaysaa dhaqaale buu ka helay waxana waa dadna way ka soo doonayaan insha Allah markaad maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay inay soo marketplace markaas aad u gashid gabayeen howlgal ay ku sheegeen inuu ahaa Facebook markaas aad u gashid marketplace markaas aad u gashid waxaa ku soo baxaya sell iyo category sellka waa taabani maxaad iibinaysaa marka marketplace maxaad ku iibinaysaa sellka waa taaban marketplace maxaad ku iibinaysaa alaab baad iibinaysaa baabuur baad iibinaysaa aqal baad iibinaysaa aqal baad kireynaysaa aqal baad kireynaysaa dadka oo sheegay baabuur baad iibinaysaa dad alaab iibinaysaa anigu waxaan iibinayaa alaab baan iibinayaa wadan waa kan xagana la buuxinayaa marka
marka xagga waxaa loogu talagalay sawirkii, xaggan waa taytalkii, xaggan waa qiimihii, xaggan waa nooca alaabta, nooca weeye alaabtu noocay tahay, xaggan ma jadiid baa mise waa baali, xaggan shaygii baad ka sheekeyn marka dambe oo waad sharaxi. markaas saasaan u wadaynaa marka xaggan sawirkiisaa soo gelinaysaa, shayga sawirkiisii waxaad iibinaysaa muxuu yahay, xaggan aad kasoo dhex doonan sawiradii baa kugu dhex jiro, halkan aad kusoo download garaysatay. marka anigu kaasaan soo qaatay, next baan oranay, xaggaa buu soo fariistay, shaygu muxuu yahay, shayga magaciisa waa qoray taytalka, aloe vera jelly, waa cream aloe vera jelly la dhaho, qiimaha la siinay muxuu yahay $20. muxuu yahay waa isaga kuu sii doortay, skin care baa la yidhi, waa waxa magaca markaad gelisay isagaas dooran, hadduu is dooran waad u dooran. marka wax ma jadiid ba, waa jadiid baad oran, waa new, halkaa waa new baad ku qoray, xaggan waa noocu sii doortayba skin care creamku waa wax lagu daryeelo jirka. shaygan markaa waa sharax, aloe vera aad leedahay, aloe vera gel, aloe vera jelly waa cream tayo fiican leh oo aan lahayn chemical. intaa waa iska soo wadaan, hal shaygaad ka sheekeyni marka xaggan meeshaad dooran marka, xaggaa waa dooran kartaa waxay ku qoran meesha meeshaad doonaysa buuxin marka waa apply dhammaan, waad bedeli kartaa aniga meesha ayada shaygan ku buuxinayo marka wax badan sawirka laga yaabo qiimihiisa jadiida sharaxaadiisa meeshaas waa xayeysiinaya, haddana location-ka meeshaas waa xayeysiinaysaa waa dooranaysaa, haddana meesha markaad joogto waad sii hormari meesha muxuu yahay noocaas chemical-ka yahay aad sii dooran, magacyada baa aad siinaysaa muxuu yahay creamka baad sii dooran ama scented combination cream baa oo dry injection intaan ka sameeyay distribution waxaad marka intaas ku bedeliso waxaa dooran marka booliska alaabta la dhigaya kuwan meelahana waa gurubyo kugu jira aad u baahan tahay inay arkaan waa tigtig baad siin u baahan tahay
waxaad u baahan tahay tag waa kaasina hadda uma baahni marka shaygii adduunyada waa meel goob badanayso marka inoo wareegay u socdaan marka wakaaga fadhiyo shaygiyaan soo qodnay waa feero weli waa active marka shaygii waa tustay adduunyada reer muqdisho dhow ay arkaan marka shaygii wakaa shaygii haddaan dhex galno xagga waxaa daran iyo xasuusi marka uu liska galay baad oranaysaa marka waa iska soo laabaynaa shaygii wakaa kala yaala qiimihiisii muqdisho liskiga uu ku jiraa meesha lagu xayeysiinayana waa muqdisho market place ku yaala alaabtii wakaa shaygii halka marka waa symbol saasaa samaynaysaa marka haddaa shay kale u baahatid toos baa ugu noqon aqalkii yaraa xagga badanana aqalkii baad taabanay aqalkii salkii baad dib u taaban itemkii baad dib u taaban shaygii baad kusoo darsanay next baad odhani haddaa sawir kale u baahatid waad ku darsan haddana next baad odhani titlekii shaygaad qorani qiimihiisi baad sheegay nooca uu yahay markaa waa maxay ma alaabaad iibinaysaa ma alaabta guriga ma beerba ma house waxa alaab hoose guriga ma dharba ma dahabba ma baagagba ma dhar ragba ma dhar dumarba ma wax ku saabsan dumarba health and beauty ba ma ciyaalka ma electronic ba ma sportiga wax la jeclaystaba ma wax qofka uu jecel yahayba hobbiskiisaba iskalkii waxaad jeceshaa talaamadeen marka waxyaabahaas oo dhan waad arkaysaa waad buuxbuuxin marka halkan waad buuxbuuxsani descriptionka baad buuxbuuxin shaygii magaciisa aad ku qiimay kadib additionalka baad taaban marka xagaa baad taaban kadib public baad odhan marka insha allah intaasaan caawa kusoo afmeeraynaa wabilaahi wixii aan saxnay xagga ilaahay bay ka ahaatay wixii aan khaldayna naftayda iyo shaydaan insha allah intaasaan kusoo gabagabayn wabilaahi